waxaan ku faraxsanahay inay baarlamaankan ka mid yihiin dhalinyaro abitaydu haysa maskax nadiif leh oo runtii qodobada si wanaagsan oo u soo qeexaya oo kamid ahaa yarkii shalay yiri heestaha lagu bedelo wax duca ah runtii waxyaalo ku dhadhamaya jira waxa jira sida lambarka la yiraahdo eber xisaabta waxba kama bedelo sida aan ognahay waxa jira siyaasiyiin sidaas oo raba hadaba dhalinyarada maskaxda nadiifta leh inay bedelaan waxaan uga digayaa halkan baaq uga soo jeedinayaa arrintan dar ilaahay iyo mas'uuliyadii aan u dhaaranay baan uga shaqaynaynaa waxaan rabnaa qof walba maskaxdiisa ra'yigiisa iyo waxay la noqoto in halka lagaga doodo bulshadii rayidka ayaa waxay inoo tahay oo check and balance samaynayso inala joogta halkan intaasoo boqol oo qof kagama shaqayn karaan wax lugooyow ah ummadda Soomaaliyeed laakiin qofku markaan hadda buugaan israahdo akhri oo niyad fiican ku akhriyo waxaan garanayaa wixii aan ka shaqaynayo laakiin haddii xasan sheekh iga dhex muuqdo oo madaxweyne ah oo ay muuqato mataqaynaan raalli ka ahayn shaqadaas waxay noqonaysaa shaqo khalkhal leh oo qodob halkaa ku qoran baa ayaan dhaweyd nin halkaas soo istaagay si khaldan u akhriyay waxaan rabnaa inaan si daacad iyo lilaahi ah oo maskaxdeena kaga shaqayno qof u quuri kara rijankiisii ama ummadda uu matalo wax halkaa xun inuu uga qaado ma jiro laakiin in khalkhal la geliyo dastuurkii waqti baa inagu socda waxaan rabnaa xilligiisa inaan ku dhamayno waxaan rabnaa inaan juhdi galino rabadaan baa soo socota in maalin walba qof khalkhal geliyo ama qof ma aragtay wali kursiga u sii muuqdo way ila khaldan tahay waxaan qabaa waxaan la yiraahdo xuduud beenaadka oo qofka Soomaaliga ah 54 laynagama qaadin awood markii Soomaalidu ay diiday gumaysiga ayaa iyadoo laynagu xumeeyay Ingiriisku inna wuxuu u jaray reserve area inna wuxuu u jaray dhinacan Kenya marka inaan inaguna ayidno oo dhulkeeni iyo dadkeeni aan sharciyeyno ilama wanaagsana marunba iska imanaysa wax walba waqti bay leeyihiin waxaan rabnaa inaan ummadeenu Soomaaliya sida loo xusay aynan kala soocnayn waxaan soo dhawaynayaa baaqi gabdhaha oo laga aqbalay waxaan u mahadnaqayaa ragga xildhibaanada ah geesiyada ah walaalahaya ah oo shalay noo saxeexay nagu taageeray waxaan cambaaraynayaa saaqid siyaasadeedka doonaya maalin walba inuu halka maskaxda iyo jihadii goluhu ku socday uu maran habaabiyo Soomaaliya ha noolaato